السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدوا هذا بريا صبح صومان قلين waxaan rabnaa sharma boocidi shir qolka u dhigtay iyay ahayd ilaa 3 qof weeyaan 3 qof baan rabnaa inaan sheego ninka sharma boy la raahdo cidii shir qolka u dhigtay nimanka shir qolka u dhigay ninka miskiinka ah ee ka oohiyay baan rabnaa inaan sharaxno si shargaray barnaamijkan si gudbiya oo asxaabta kale la wadaaga degdeg insha Allah ninkii waxa weeye waa la ciilay tolna waa waayay waxa weeye Soomaaliba u tola waa in magaranaysa dad badan ay Yurub looga qaxiyaa waa inaanu daahir dameer aanu ku badbaadin Yurub isagii reerkiisuba xataa reerkiisu inay badbaadaan inay reerkiisu xataa badbaadaan maaha waa in magaranaysa gacan bira lagu qabtaa ninkaas iyo reerkiisuba waxa weeye wiilka Sharma Boy leeyahay waa wiil iska miskiina waxa way qofkii xumaay dameerka wuxuu ku dhaliilayaa oo uu leeyahay wiilku xashadu cabaa iyo waa xashish boy war qofku wuxuu doono haduu cabaa adiga maxaa ka galay waxa weeye diinteenu walaalayaal diinteenu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar markan ka hadlayno qofka si wanaagsan baa wax lagu sheegay dad u cadeeyso qofka haddaad rabto inuu magaranaysa tala ka qaato waa inaad media ka soo caayin waa inaad si wanaagsan ugu nasteexaysaa waa inaad tiraahdaa waxa iska daa laakiin waxa soo cabaa khamri oo cabaa xashish ku cabaa aniga wax ka qaadaya adiga maxaa ka galay adigu waana baad ku leedahay waana waxaan ahayn kuma lihid qofka waad magaranaysa waanin kartaa waana wixii ka dambeeya ma waanin ka qasab maaha qof la qasbaya ma jirto balwada hadduu qofku cabo ruuxan iska daa saaxib waad oran kartaa laakiin balwada waa inuu iska daaya haddii kale waxaasan ku sameynaya balwada waa inuu iska daaya haddii kale YouTube-kiisaan xidhaya diinta waxaa qoraysa waa tii laa ikraaha fi diin diintu qasab maaha dadka si wanaagsan baa wax loogu sheegaa adigaaga laftaadu markaad dadka wuxuu sheegaysana adiga waa inaad balwada isticmaalin dameerkan Holland jooga isaga balwadan isticmaala isaga waxaan uu ka sheekeynayo dhan cabba marka wuxuu sheegaya ya riyuhu waxa la dhahay haday dib leeyihiin dabadooda ku qarin lahayn war adigii baaba magaranaysa balaysan oo balaayadan cabbe yaad wuxuu sheegaysaa yaa wax ka dhigaysanaya adigu marka hore waxaan ka toobadkeen adigu marka hore nin wadaad noqon ma adigii baa wadaad iska dhigay dameero ma adigii baa wadaad iska dhigayo imika la diin baan faafinayaayo dad baan xashada ka qabanaya adigii baa cabay xashada adigii ayaa cabaya family-ga qaar kamid waxa la noo sheegay inkastoo aan rabin inaan magaranaysa hablahaaga magacooda sheego si shargaray barnaamijkan inkastoo aan rabin inaan carruurtaada magacooda sheego oo dagaalkan carruurta aanay ku jirin haddana waxaan maqlaynaa in carruur adiga kamid carruurtaada ay balaysan yihiin oo ay arrimahaas waaweyn isticmaalaan marka waxa weeye walaalayaal ninka Sharma Boy xashadu cabaa iyo balwad buu leeyahay annaga waxba nagama gelin annagu waxa quura aynu ku difaacayna waxa weeye waa xaq weey qofku balwad buu yeelan karaa lamana qasbayo qofka iska daa waa la oran karaa laakiin anigu qofkii maan dhalay ma waxaan oranayaa balwada hadda iska dayn weydo YouTube-ka ka xidhaya waa qalad xaq kuma li gabadha halka waana dhacaysa saxaabada walaal waxaan iska daa khamrigan ma wanaagsana inama al-khamru wal maysar wal ansab rujm min amal ash-shaytan bi ilaahi yiri waan wacdiyaya haday qaadatana waa saxan haday igu diidana daadar anigu ma xukumo meeshan ba wax la soo fadhidaa khamriga waxa weeye xashish boy carruurtaada ka sheekaynayo carruurtaada iyo family-gaaga iyo gabadhaada saaro magaalada bareedo quraanka ka dhigtaa waa sheekad baa leeyahay ma sha Allah Allah ku barakeeyo kullay carruurtaad soo saaraysa carruurtay noqon doonto ma garanayo gabadhiisu waxa lagu leeyahay waa wadaado mawliido gabadhu waa wadaado ka xishoodo maxay dhigtaa baan waxay ugu yiraahdeen waxaan imaad gabadha ogeyn gabadha daahir quraan ka dhigtaa waa la yidho xaafado dhan baaba si shargaray barnaamijka shargaray oo subax hore waxay ugu yiraahdeen xaafado dhan oo magaalada bareeda ayay u dhigtaa horta gabadhiisu hal arrin waan ka sheegi karaa gabadhiisu horta in arag waa gabadh iska asturan marka runta laga hadlayo dagaalka runtu
gabadhiisu horta niyo بريها ما نرجع قبر ساو واسترن رنت مركان كهذليو لكن أتأمرون الناس بالبر وتنسوا أنفسكم أيضا سحوية دتك مونا جا فريسان دتك مونا جا فريسان إذا كنا نفتين مية كريبيسان وإذا كنا حماتي ما سمعنيسان قبل ديسو نكا ظاهر اللي قبل ديسو وحجابن تهي سداسنا قرآن بكودكتا مرجع واحد حستم تقانا hadda ka hor baa waxa la iga sheekeynin beesha ka soo jeeda hawiye waa dad sharaf leh laakiin waxa la igu yiri waxa jira baa la igu yiri niman wadaada oo masaajidada tujiya oo guryaha ku jiraan dad kale ay leeyihiin ama guryo bilqa ku jira arrimaha dad badan baa ay sheegeen waxa ma tagin laakiin faarta waa la soo gudbiyay faarta waa la soo gudbiyay waxa la igu yiri mawlido waxa jira la igu yiri guryo ma garanaysaa wadaada niman wadaada ah وحمر جوجا وهذا بيش هوية كسوة كذا هرت هوية ده وضم موريان معها وهذا رد هوية وضم موريان هوية معها هوية وحكوا ترى شيخ محمد عريفي شيخ محمد عريفي ميوها ها شيخ مقدس جوجي شيخ شيخ هبل تشيس بكوا ترى وحكوا ترى نمن بدنا ود ما شاء الله ود مقرس وذا دوا وينه حسن دايرة ويس كلها حسن دايرة ويس وذا ما نقط حسن داهر أويس كلها حسن داهر أويس موداد ده شرقري برامج حسن داهر أويس أدر أنا ووداد ما قارنه هذا هدو وداد كوي هاي والله هاي حسن داهر أويس مولده كتر مايو حسن داهر أويس دد بولاي حسن داهر أويس هو موريان ما فهمت إنك استوى أنا أرنين مقران ساي سهرق قاري اللي دين تكبحي هرتنيك هو شيخ حسن داهر أويس دين تكمل بحين وبين نك الدمار كاس على هابردويتو شيخ هيستولها دين تكبحي حسن داهر ويس دينته كمو بحن علي يرانك اللي وابين علي يرا وني وناكسن دولة التاجرة دتكينا واحد ديسان سنة علي يرا دينته كبحد ديسان ولا علي يرا وني وناكسن ونيو دولة نمدا إيو صومالي إني ميل قادر ربا بينته ديسان علي يرا دينته كبح وابين حسن داهر ويس بعد دينته كبحينا وابين ويوم حسو وركاسكم تشرو لكن حسن داهر ويس دد بولاي وارن دد بولاي وتاون أغنى دد بولاي واي markaan inta ka imaado waxa weeye ma garan saay reeraha ma gelayno oo reer badan oo hawiye badan oo wanaagsan baa jira oo Ilaahay ka baqanaya laakiin rag badan oo xamar jooga waxa la sheegay oo wadaada ah guryahay ku jiraan inaan iyagu lahaynba guryahay ku jiraan inaan iyagu ba lahaynba marka waxa weeye nimankaas waa bilqo weeyaan waa qayb kamid ah kaas waa abgaal baa leeyahay kaba abgaal حسن داهر ويس أبقال ما هو وهبر قدير حسن داهر ويس أبقال ما هو وهبر قدير هذا أنا وحين نكال راحوا هبل تشيس محمد مقعيس يسوق شيخي مقراس هاي نبضي نورها عمر تشيس ميوه هبل وتشيس ها شيخ وتشيس بأبقال في له لكن كوا كله وحول ملاينية إناني مركا وحوي ده مركا أنا والله يا ما يهدي لي هذا قبل السهرة وظاهر قبو هي قرآن كدكتا قرآن كدكتا بقول لي قرآن ما شاء الله أبا يشغلون أكسب هذا يسا لكن ده محل قرآن دقيقا ندال لما أو مقرأ سعيد ومدو نعضيه مقرأ سعيد توجا يا جري كوتشوجي موسى السودي مين موسى السودي الشيخ معي هني أكل عشان ده أكل عشان موسى السودي بالشيخ كلها موسى السودي الشيخ معها كاسي odaygaas sheekh ma hayna gadaaya odayga naga daaya ee noo soo qorina Muuse Suudi waa isbaaraysta weyn buu haan jiray runta marka laga hadlayo laakiin imika sheekh oo dawladda caadiga ah ma garanayay jamaacatu ihtisaamka weyn ninkaas laakiin Muuse Suudi yaraxo sheekh maaha dad buu guriga ka haystaa waa la og yahay waxa weeye waa nimankii warloodada haan jiray anagoo Hargeysa joogan maqli jiray Muuse Suudi yaraxo أيه وحاس ماشى قبصدي ماشى مقرأة بابيي برجع المغلي جري مركز الشيخ يسقوا معه مركز وحوي هوية يجوا واحد دوران سمعنا إياه قيب كميدي أيه دنو ذا دي علميين ما فهمتين والمركز اللي بكل الداية دين تعدي إنسان دين تدي توقت بدلا والدين تعدي إنسان إياه دواتنا سمعنا إنسان كل شوشية بلي ما كقبل ناس هروة وذات بلقول لك ورما هذا
ninkeedu waxaasuu samaynaya ina yar buu ka oohinaya maalin walba sharma boy ninkaas shirqoolay waxaa kaloo ka mid ah axmed rashiid ninka la dhahdo axmed rashiidow bal nairobi inaad ku badbaaddo waa la arki doonaa ogaadeen baan ahay baad leedahay 8 milyan baan ahay 8 milyan inay shaqayso iyo in ummadda Soomaaliyeed ay iska ka qabato waa la arki doonaa ma fahanti 8 milyan baan nahay laandheera haddaad tihiin ma dadka dulmiya leed ku maxaa wiilka yar maxaad xiniyaa uga istaagaysaa ninkaada lugta u qabtay maxamed rashiid kale la gaarsiiya nairobina waanu soo socdaa inan ka yare sharma boy adigaa ninka lugta u qabtay adigaa wiilkan baaskoolada ku qabtay leeyahay deeq darajo maxaad adigu ninkan bay ishaysteene aad wiilka uga hiilinaysaa oo ninka kale dameerka war haddaad wax u hiilinayso askari tahay askari baa tabeelay anigu askarigaagana garanaayo mana Soomaaliina tayna ma garanayo ma Soomaali waa qofku soo Kenyan war waxaan noo sheegay waxaan ma Axmed Rashiidku ma Soomaali ba mise waa Kenyan horta Soomaali bali soo qora wallahi billahi anigu waxaan Kenya askarta ka uma malaynayay Soomaaliyiin war waxaan waa jareer baan malaynayaa ninku ma jareer ba mise waa Soomaali okay hadduu yahay jareer oo de qabiilkaana uu sheeganayo horta waxa weeye dadka maaragtay Kenya jooga waxaan u naqaanaa hadday yihiin daarood hadday isaaq yihiin hadday hawiye yihiin anu Soomaali sujuub aan u qaana ma garatay Soomaali sax ma fahanti Soomaali sax wallahi inaan ahayn way ku iibsanayaan laaluush ma qaato Axmed Rashiid waa caynka duqbilow doqonnimadii baa kugu soo baxday rag saaxiibanu ahaan jirnay laakiin waxa weeye doqonnimada jooji maxamed rashiid waa nin wanaagsan sharaf buu leeyahay sharaftu leeyahay waa maxay ninkan aad noo sheegtaa nin Kenya askari waa Kenya ratad leedahay sharaf buu leeyahay nin Kenya askari waa ayaad waxaad la soo fariisay media sharaftiisa la dilayaa sharaftiisa laga xuyay sheekadii Batula Kee miyaad noo keentay Batula Kee sheekadiisii miyaad noo keentay sharaftiisa laga xuyay kulaha waan anagu ninkan qofkan Kenyaanka u shaqeeya ma naqaanaa anagu way sharaf uu leeyahay ma jirto qof Kenya u shaqeynaya Kenya dhul bay naga haysataa qofka uu askariga ah qofka uu basaaska ah labadooduba aniga way isku kaymid waxay yihiin Soomaali sujuub Soomaali sax baa uu idma haystaba ma fahanti waxaad nagala dhamaan laaday sharaf buu leeyahay ka karaamadiisa la dilayaa waxa weeye waxaad caayaysaa qabiil dhan baad iska caayaysaa waxa weeye wiilka yar ninka lugta ninka u qabtay baaskooladuna wallahi way jirtaa Soomaaliya way jirtaa sheekadaasi xalayto waxaan dhageystay sheekadu marka ay jilliin tahay waad kala garanaysaa waxaan dhageystay gabadhii maxaa la jiray Hiblaayo Kaachal ma ahayd gabadhaasaan dhageystay way ooyisay gabadhaas waxay tiri waa la dhibaateeyay baaskoolad baa ninkayga lagu qabtay marka wiilka deeq darajo leeyahay baaskoolad baa lagu qabtay waa run cid diidi karta taas ma jirto waxaana ku qabtay oromka loo waayay ee Hebel Rashiid la dhaahdo ee askariga ah Kenyan askariga miya qof kale hadii lacag la soo siiyo way qaataan laaluushka war dadkan Kenya lagu afduubanay maxaa loo afduubanay lacag baa loo afduubanay ma fahanteen Soomaaliduna Kenya annaga la leeyahay wax Kenya Soomaalida Kenya waa laga awood badan ma garatay maalin walba inay yaro Soomaaliyeed inta la qaato meelaha lagu meedkeeda lagu soo tuureen hadii Soomaalidu awood leedahay waxaan meesha joogaan ayaga u shaqeynaa Kenya ka shaqeeyaan marka waxa weeye Kenya inaga leh waa run laakiin waxa weeye wala naga awood badan meesha sababta ma garanaysa maalin walba meed loo soo tuurayo ee qof loo qaadanayo Soomaaliya Hebel Rashiidkan muu muxuu badbaadin karaa wallahi futadiisana badbaadin kareen ruuxan waa beeniyo ya waxaan waa been waxbuu badbaadinayaa iyo yanninkani sharaf buu leeyahay iyo sharafna aad ma jirto meeshane beeniyaan la isu sheegayna ninkani isaga wiilka baaskoolada ku qabtay de Soomaalida yar miskiinka masaakiinta ah ee wili bilaa sharciga abu kaadigi ma fahanti Soomaali sharci si toorto uma soo dhawaan kara kaas maxamed rashiidkaas oo Soomaalidu safarad bay leeyihiin laakiin waxa uu kaadigi yahay inamada yar qaxoontiga meesha ku jooga ee sharciga lahayn ee dhudhuumanaya ciyaalkaas ku kaadigi ma fahanti